الحمد لله إلهي بانكم مهدنينا إن سوى فجيي كلنكاس عن دينتي أنا معاني سبر أروجنينو يا خيرك على سفرينو وحي منكرنا عن السجر ريبينو ولا لهن خيرك سوء بابولين إلهي بابوا فجيي إلهي بأجر الثواب أي كله إنك أنا دمانتين إلهي بأن وافجيي إن المشا كلنا ودول كاسمارتان كرك إلهي أن كحسنه ونعم وين إلهي نسيه وياه رسول كان صلى الله عليه وسلم حيري آيات كنت على سورة زلزلت يومئذ تحدث أخبارها بنبي وآخرين أتدرون ما أخبارها بنبي عليه الصلاة والسلام maalinta arladu ay warkeega warrami doonto ma garanaysaan markaasay saxaabadu yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisa ayaa nooga aqoon badan markaabuu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi an tashhada calaa kulli cabdin wa amatin aw amatin bimaa camila calaa dahriha taquul camilta kada fii yowmi kada wa kada arlada dusheeda qofka waxa uu ku dul sameeyey hadduu khayr ku dul sameeyo khayr bay ka warrami doontaa hadduu shar dusheeda uu ku sameeyana sharkaa bay qiyaamaha warrami doontaa marka waxaa laga yaabaa meeshan kulano fara badan hortee dadku inay ku qabsadeen kulamada lagu qabtay inaka horteen waxay u badnaayeen baa laga yaabaa kulamo ilaahay uuna raalli ka ahayn laakiin kulankeenan maadaama uu yahay diin darteed alla darteed ilaahay kulankan insha allah raalli buu ka yahay insha allah dhahada marka yar fadhiistana insha allah inay meesha nagu yaraataa suuragala sida ii muuqata laakiin insha allah waan sabraynaa insha allah haddaad karaysaan raggiina dhalinyarada markaad aragtaan gabdho walaalaheenuna kor taagan oo kuraasidii ay ka buuxsantay inaad uga kacdaan baa yaa laynaga dalbanayaa iminka maaha waa markaad aragtaan laanna dumarku way naga jilicsan yihiin adkaysigaa badan ee adigu aad leedahay walaashaa ma leh in loo khidmeeyaa markaa loo baahan yahay istawsuu binnisaa'i khayran buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam war gabdhaha waxaad ku dardaarantaan buu nabigu leeyahay oo nin kastoo ninka muslimka walaalkay aad kula dardaarantaa inuu haweenka u samafalo uu khayr u sameeyo waa shaqiiqaad weeyaan feedhii bidixee nebi aadan baa laga abuuray calayhi salaam marka way naga jilcsan yihiin iyo kuwa warshad socota warshad maasha allah meesha ilaahay lagu weyneynayo ilaahay malaa'igtiisaa soo xaadiraysa iimaankeenaa ku siyaadaya naxariista ilaahay baa nahagoogaysa ilaahayna caza wajalla wayna hadal haynayaa man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsi baa ilaahay waman dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayru min mala'ihi addoonka keli i xusa baa ilaahay leeyahay ana keli baan xusuusanaya anoo keliyaan xusayaa addoonka jamac igu dhex xasuustana baa ilaahay leeyahay jamaca igu dhex hadal qaaday jamac ka wanaagsan oo ka khayr badan baa ku dhex xasuusan buu ilaahay yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam qaar saxaabadiisa ka mid oo meel fadhiya buu nabigu kor yimiday markaa buu ku yidhi maa ajlasakum maxaa meesha idin fadhiisiiyey waxay idhaahdeen waxaan u fadhiisanay ilaahay inaan xasuusanno bas oo islaamnimada ilaahay uu nagu deeqa ilaahay uu nagu hadeeyey aan maaragtayna ka mudaakarano oo ka sheekaysanno markaa buu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi allahi maa ajlasakum ilaa daaka ilaahay baan inagu dhaariyey arrinkaa mooyaane arrin kale uma fadhidaan miyaa
markaasay saxaabadu yidhahdeen ilaahay baanu ku dhaaranay arrinka aan kuu sheegnay arrin aan ahayn oo kale uma fadhido markaa buu nebigu sala allahu calayhi wasalam dhaartii buu haddana ku celiyey markaa buu yidhi ilaahay baa nagu dhaariyey ma arrinka unbaad u fadhidaan markaasay yidhahdeen haa ilaahay unbaan ku dhaaranay arrinka aan kuu sheegnay arrin aan ahayn uma fadhino markaa buu nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaan dhaarta inagu celcelinaayo maaha xumaan aan inagu tuhmaayee bal jibriil calayhi salaam baa ii yimid oo ii sheegay in ilaahay casa wajalla uu malaa'igta inagu faanayo islaamnimaday ka mudaakaroonayeen ay ka sheekaysanayeen maxaa yeelay islaamnimadu waa nicmad ilaahay dad gaara ayuu siiyey waa nicmad ilaahay uu bixiyo weeyaan oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa adduunyada ilaahay qofkuu jecel yahayna uu siiyaa qofkuu jeclayna uu siiyaa laakiin diinta islaamka ilaahay ma siiyo ilaa qofku ilaahay jecel yahay mooyaane nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo wiilkiisa ismaaciil markay beydka ilaahay casa wajalla ay dhisayeen waa kuwii ku ducaystee lahaa rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wa min durriyatina ummatan muslimatan laka ilaahow aniga wiilkaygan ismaaciil laba muslimiinoo adiga kuu hoggaansan ilaahow naga yeel durriyadda tafiirta dambeed dhabarkayga ka soo saari doontana ilaahow waxaad ka dhigtaa ummad muslimadoo kuu toosan adiga oo amarkaaga iyo maaragtaane diintaada ku toosanna ilaahow dhabarkayga ka soo saar buu yidhi waa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam ayaa ku ducaysanaya oo lahaa ilaahow muslim iga dhig oo wiilkayga ismaaciilna muslim iga dhig oo dadka annaka sulbigayga dambe ka soo bixi doonana ilaahow dad muslimiina ka dhig buu nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam uu ku ducaysanaya sidaasuu lahaa nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam 40 sano markay isagii aabbihii hooyadii kala maqnaayeen imtixaan isagii walaalihii ka dhex dhacay ayaa u sabab ahaa inay yuusuf iyo hooyadii iyo aabbihii 40 sano ay kala maqnaadaan 40 sano kadib baa ilaahay kula siiyey waa markuu nebi yuusuf ku ducaystay uu leeyahay rabbi qad aataytanii min almulk وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا توفني مسلما وألحقني بالصالحين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وحو نبي يوسف كدو عيسنا يا إلهو أنيق مسلم ما إيقو أوفسو أنا مسلم إلهو أدونك إيقا قاد دادكي وروناك سنانا إلهو إيقارسيب لي والنبي أبيهنا والنبي يعقوب عليه السلام أووغي سنة وإسحاق عليه السلام أووغي صلى الله وإبراهيم وخليل إلهي نبي أسرد دا بركة سنة وذا النبي دا كسو جيدا أيا كدو عيسنا يا أولا إله أنيق مسلم أدوك إيقا أوفصو أنا مسلم بمعنى مسلم كأنبي كدو عيسنا يو ماها مسلمين دا الزمن كسو عدا سيدة وسعودان ماها وحل لقدو عيسنا يه ومسلم قمان ويان مسلم قلبكيسو مسلم يحي هذا الكيسو مسلم يحي شكل كيسو مسلم يحي طبيعتيسو مسلم أي تحي شقديسو شقا مسلم أي تحي نولشيسو نولل إسلام أي تحي إسلام نماذا كوكر نول وإسلام نماذا كل من آيا ومالك قيامها إسلام نماذا الله صوبح آيا الله إنك سليمان عليه السلام نبي الله سليمان markuu carshiga bilqiisa uu ku lahaa halla ii keeno ee carshigii bilqiisa loo keenay ee carshigii bilqiisa la beddelay sawirkiisii ayuu markaa ku yidhi bilqiisa ku yidhi nacam qaala ahaakada carshuki qaalat kaannahu huwa wa uutiina alcilma min qabliha wa kunna muslimiin carshigii bilqiisa ay ku fadhiisanaysay ayaa laga soo qaaday saba markaasaa loo keenay qudus لأن مركز بلقيس تمدي عرشي أو الصورة دي سيل بدلي ما يسقي بهوا ما يسقي بعد مدابي تري مركز النبي الله سليمان أوليه وأوتينا العلم من قبلها أنا كأيده هرتد با إلهي أقول ونسيي إلهي وحول نسيي علمك ووحي قويان وعلم الدين علم الدنيا أيا إلهي النبي سليمان وسوق ضريبا الليلي وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين dad muslimiin oo ilaahay u hoggaansan baan ahayn buu leeyahay muslimnimada dad badan oo muslimiina markay qaaradan u soo gudbeen
ويكفانان ويكحشودان إن الدين تودا كفانان يكون رغمان موجيان ولكن نبي الله سليمان عليه السلام وحا كفانا يا يولي هي أنا كنت المسلمين أي أنها يقول المسلمين وفق مسلم كا مالك استوجوغا مسلم هذا الجسوة هذا المسلم دقن جسوة دقن إسلام سعود جسوة سعود مسلم دين جسوة إسلام عبادة جسوة عبادة إسلام كا أدون كأنتو جوغا وفق مسلم كم مسلم نبو كن ولانا يا مالين تون دنتنا إسلام نمدو كن دمنا يا مالين كقيامها لصوص سارنا يسوى مسلمة أيوة بك قيامة صوبح الدونا إن شاء الله هذا فرعون عليه اللعنة قد قرأنا سان فرعون تضبي اللباتين جزء قرآن كأنه كتالا أي إلهي كسوع العلي النبي الله موسى عليه السلام يا فرعون كي قوق بنايا كبر كبنا وحي الأحمري قرآن كإلهي تضبي اللباتين جزء أي النبي موسى فرعون إلهي وكجور ربي ولكن نكا فرعون كبر كبنا مالنتي اللي قبتي الله علي بيها نحيد اللي قبتي وبيه بدي النبي موسى عليه السلام هي ريبن إسرائيل الله كلا جاحد جدك الله غفري فرعون يعيدن كيسين الله قبتي اللي هلاقي ومركا فرعون مركا غرق وهلالي أي لي هي حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين مركا غرق وهلالي إلا قبتي بولي هي hadda maanta laga bilaabo waxaan garwaaqsaday oo gartay ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro adduunka dusheeda haddii uu jirana reer bani Israa'iil kay caabudayeen kaasuun ba xaqon aniguna caabudaya maanta laga bilaabo muslimiinta ayaan kamid ahay xataa ma oran anigu boqor baan ahay ma orane wa ana min almuslimiin aniguna mid muslimiinta kamid ayaan ahay buu leeyahay markaas lagu yiri al'ana waqad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin ma hadda ilaahay u soo noqoto ilaahay garatay saudigi arada dusheeda cisyaanka la yimiday ma saudigi arada dusheeda fasaadkii munkarka ku sameeyay ma saudigi adduunka dusheeda ku qooqay rabbinimo sheegtay ma ee nabiyullaahi Muusa alayhi salaam waadigii warkiisa qaadan waayo warka nabigu ku gali waayay ma kibray ma iminka ilaahay garanaysa u soo noqonaysa laga aqbali maayo baa lagu yiri laga yeelay maayo waayo arlada dusheedii baad fasaad iyo kibir ku soo sameysay maanta markii lagu qabtay baad leedahay ilaahay baan u soo noqonaya laga yeelay maayo baa lagu yiri waxa waliba aayada aan soo saarayna jirkaaga badbaadinayna baa lagu yiri ilaa qiyaamaha si gaalada iyo jabaabirta adiga dabada imanaysa aan cibro ugu noqotid baan meedkaaga u badbaadinay baa lagu yiri qofka way aragay ka way aragsan سو خبرت دي سين لقى فايدة سوما هذا فرعون نواي أرق أبوها بقول سنة كبر الله بقول علماء قرافر بقول بيجارسيان عمريس نك أنت صو سنة وضن كتلين أي كبر يقوق قاعدين هذا أنا قرب بيجي كوريا كاس أمرك وضن بس حقيقة صوت أبطاله وروح الشيخني ووحبك مجراني أحد مسلمين تكمل أيان هي قرب وليه يعني خبيرة dadka aniga iga dambeeyo aniga tala iga qaato oo islaamnimo ku soo noolaada islaamnimana ku soo dhinta maalinka qiyaamaha inaga muslim ilaahay la kulma wa xaaladda fircoon marka uu quraanku noo soo naqliyay ayaa ka bixinaysa macluumaadka ay ogaada laba marxalo qofka bini aadamku ka hor haduu toobad keeno toobada waa laga aqbali buu rasuulku yiri laba marxalo ka hor لكن لبدا مرحله قفك بني ادمك marka uu soo gaadho haduu iraado imkan ilaahay garano ilaahay u soo noqonaya laga aqbali maayo عند طلوع الشمس من مغربها وعند الغرغره النبي عليه الصلاه والسلام ادعاد marka galbeed ka soo noqoto albaabka toobada waahid may rasuulku yiri خلاص qof toobad laga aqbalaya ma jirto ogow wana tobanka calaamadood waa weyn ee nabigeenu عليه الصلاه والسلام uu yiri لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات ساعة قيامة ما دعي دون تبو النبي عليه الصلاة والسلام إلى كهر أدركتان بو النبي طبعا على مدود واوين طبعا على مدود واوين النبي الشيخ وحا كمدا العادة أو كسر النغطة ماشا يكن عليه يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إلى آخر الآية آيات كتها لسورة الأنعام آخر كذا وكيل هيلها مالين با إيمان دونت آياتك ربك بركودا إيمان دونان
laakiin maalinta markay aayaadka dadku ay arkaan nafta orani doonta maantaan ilaahay gartay oo maantaan toobad keenaya oo maantaan masaajida galaya oo maantaan islaamnimada qaadanaya oran doonta laga aqbali maayo baa ilaahay yiri ka hor laakiin haddii qofka bini aadamku toobad keeno toobadiisa waa laga aqbalayaa ogaada وعند الغرغرة أي مركا نفتو هلكا اسكو سو ururto marka lugaha ka soo baxdo meesha isku wada timaado dhakhtaraduna ay leeyihiin kan hadeeto laba u dhamaatay meydkiisa u diyaar garoobo qaata ay leeyihiin qalabka ay ku dul rakibeen ay ka dul laabtaan ay ka dul qaataan aalaadkooda ka dul saraan ay kala wareegaan qalabkooda ay leeyihiin kan waa u dhamaatay hadeeto la aaskiisa u diyaar garooba فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين بإلهي هذه آذنت إلهي إنه جرآنت قرم إلهي آنت قرم جريتانك إلهي هداد إنكريسان وآخر إني جرتنا آل إنكرتين ودمشهد حق إني تهين آديدنتهين وبني آذنك إني أدونك كل من دونان وآخر أي تجي دونان هداد إنكرتين بإلهي ليهي كي قرابتنا واتا نفتو كسو بحيسي كعلي وقبت بإلين هذا أود هيستان بني آذن كورو مركز هذا الشيكتان غيرنا مباجين كران قبوغنا دواء وما هيان ور ما هو هيان ما هو هيان وما هيان ودنادنا joogtaan oo wadanada adduunka lagu sheego xaq caafimaadka inay ugu horumarsan yihiin dad badan baa soo arkay magaalooyinka ciyaal wada xanuunsan dad xanuunsan markaas aan ku yiri jarmalka joogtaan ama dhakhtarada tagtaana dhakhtaradii waxay yiraahdeen hey xanuunkaaga garan mayno markaas aan ku yiri qaarkood xanuunkiina anaka garanayne ilmahan qaado wadankii geeyo madrasadaha quraanka ku daro quraan hala soo saaro isagoo caafimaad qaba wadarki doontaay لأن أخوانت بني آدمك وإليهن حد بيلاده حد كما دافع كرتو أرجعوا حد بوليه هيو درب جنوا حكمنا بيه ما أركيسد 2 كيلومتر هذا جوكس سقف هذا جوك هذا الكاغو ما قاعد يكرو كيلومتر هذا الكاغو ما قاعد يكرو هذا الكاغو لميد بوليه هاي عقل كاغو لميد بوليه هاي أركتد هذا حد بيلاده هاي أخوانت بني آدمك وحد بيلاده هاي أود بني آدمك وحد بيلاده هاي حدود باجرت إلى هاي بشرك أي وقلت لقلوا أي ندافع كريم حتى كمرك وقنتودو أي قادو وأمرك أورنا يا أنا كان مدوين كرنه ما لك لا تجوا هديت الأقل كويس هذا حنوسان ومال وبرنوس ودعي الله عافية آمين هذا أيا دكتوركم بقضاء أيا دويت مقالة كوبنهاجن سديت سنوات بالله يقول أيو جيفا حنون كيسوا معي halka cunto ma marin karayo bal leeyahay halka biyana ma kaban karayo cuntana ma cuni karayo wasnigiisu miisaankiisu 140 kilo buu gaadhay bal leeyahay maantana waa 40 kilo markaas halkana laga siiya marka halkana qasabad yar laga galiyay dadna halkaas uu ka qaataa jalka iyo nafaqada sanka dhakhtar kasta waa la geeyay dhakhtar kasta waxa uu leeyahay ninkan xanuunkiisa anaku garan mayno aw marka bini aadanka cilmigiisa aw bini aadanka awoodda bini aadanku lamid xuduud bay leedahay xad bay leedahay walaalayaal marka laba shay bini aadanku iskama celin karaan oo iskama daweyn karaan gabowna iska dawo way u waayeen geeridana iskama mancin karaan bal geeridu dhimashadu waa aayada kaliya ee bani aadamka adduunyada ku nool oo dhan ay isku waafaqsan la isku khilaafsanay cid dhiman mayna tiriman maqasheen waligii war ma jirta ma maqasheen ma jirto gaal caadi gaal madow muslim dheer iyo muslim gaaban u tag ma dhiman ma soo noolaan waan dhiman u boqoran laakiin waxa la isku lagu kala tagay bacda al-maut maxaa jiri doona bacda al-maut bacda al-maut marka labada marxalo ka hor qofku haduu toobad keeno ilaahay haduu u soo noqdo ilaahay toobadiisa waa ka aqbal يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي
يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بمثلها مغفرة حديث القدس معني يسؤوها وكي نبينا عليه الصلاة والسلام يري ربيين وحيري إن آدم ومربع هذا أدقوا أنيق أدي آمن سنتهي وآدي برييسو وآدي الرجينيسو وأنيق كليغي أدي عابديسد دنبيغي دوني هكادعي هذا دنبيغا كسو نغطوديس توبت كنتا أنيقنا دنبيغا وان كادا في با إلهي يري عدانو آبايا ليو كعبسر يا مجرت با إلهي يري عند إلهي وكبغا يا مجرتا كالله حاشا لو بلغت ذنوبك عنان السماء قففك كادا عيا هذا السماء فتكوغا أي قادان وفتك أي قادان لكن الدمدا فادي قد لبتد با إلهي كلي هي أنا قد دمبغا وان دافي با إلهي أنا آبايا لمايو هذا بكر قيامة اعتمادد أديكو أرلدا مجد وقف وتقف لكن هذه لكل أنتو أبو إيسو شريك يلين لأنه قف قدو إلهي والشريك يلو قف كستو لقد في ما يوغو شرك هو الذنب الأكبر وياه ومن أكبر الكبائر ويا شرك وياه حدو قف إلهي لكل مو إسوون إلهي والشريك يلين قففك هذه لتمد إلا إقو الذنب دافع كولي من با إلهي كولي ورحمتي وسعت كل شيء نحريس إلهي وحول بكب الله فإلهي ونوبة هنه مركز أقوسا مسلم كما قوستو مسلم نهو مسلم أهو ما شادون تجوغو مسلم أهو نولكات جوغتو إلهي باسكالي ودنكات كتمد إلهي باسكالي هلكا إلهي وكوكو أركاي وعدكو سمينيس إلهي وأجيدي هلكا تمدن إلهي وكل جوغا كما مغني أغو وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ما شادون تدبجوغو أهو لكن وحادو قاتا رب العزة جل وعلا وحاقات سمين إسان با إلهين ونركا يا يوغادا سمدنا إلهي وحبك من قريسو نلكنا إلهي وحبك من قريسو مسلم قل آمنت بالله ثم استقم لما النبي نوي مد عليه الصلاة والسلام وقول يا رسول الله دينتا إسلام كما القول واحد يقتل هذا أنا ذيك دبا عندنا بنحبك ويدين مركب النبي يقول قل حاتر هذا آمنت بالله ثم استقم إلهي وأنا آمنون والرميي لأن دينتا هذا استقامك يا لب النبي يقول كنت تصنو هكذا يحن ودينتا هذا كسرنو سديد كسرنا نيسا وإلى الجبال كيف نصبت sida buuraha aanan loo dhaqaajin karin dabeel haday timaado buurtu ma dhaqaaqdo roob hadii uu daana buurtu ma dhaqaaqayso baraf haduu daatana buurtu waa buurteedii duufaan haduu adduunyada ka dhacana buurtu waa buurteedii buurtu ma dhaqaaqayso sida buurtu aynan u dhaqaaqaynay meesheeda u joogto ayaa qofka muslimka looga rabaa inuu diintiisa muslimka istiqaamo ku yeesho قبل لو رجل آسية بنت مزاحم رضي الله عنها وزوجة فرعون آمنت بربها عز وجل الرب قيد بين رميسي نبي موسى عليه السلام نبي نمدي سي رسول نمدي سين وين رميسي والزوجة فرعون أقل كفرعون بكل حنوشهي مركاسي ولي بهالك الدحديد إلى هنا كو آمنتي نبي موسى عليه السلام وين رميسي ولكن إسلام نمضى وقرصنا الساعة مالنتي موجسمة تقانا maalintii nabi Muuse alayhi salaam oo Fircoon uu yimid oo shahortiisa u dhigay ee u shi nabi Muuse abeesada loo badilay waa ka Fircoon orani doona Muuse 10 sano naga maqnayd baad sixir ayaad soo baratay ballan inoo qabo aniguna saxaradeedan u yeedhanaya 70000 oo saaxiriina ayuu Fircoon adduunyada ka soo uriyay markaas waxa tartamaya nabi Muuse alayhi salaam iyo walaalkii Haaruun oo dhinaca يا سحرادي وفرعون أدوك كسو وريي أردنا عاسا مركز سحراد وفرعون كليهين أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين يا فرعون بيكويد هذين هذه ما أنت موسى أنكو أن كقول يسنو أجر يا مشقايات محل لنا هاي بيكويد هذين
haddii aan ka guulaysana ma aragtaanay muuse iyo walaalkii maxaan leenahay fircawnow waxa uu ku yidhi aniga kuwa igu dhow ee dowladdeeda xukuumadda ugu sarreeyaan igu darayaa buu ku yidhi aasiyatu bintu masaaxim gabadha dhagaysta haweenuu dhagaysta qisadaasi mastuuraadka gabdhaha saalixaadka ee qisadaasi ku socotaa gabadha muslimadda waxaa laga rabaa diinteeda inay ku sugnaato oo dhaqankeyga islaamka aynan ka guurin meel kastoo joogta gabadha muslimaddu dhaqankeyga ma bedisho haddee dhul islaama joogtana gabadha muslimaddu waa muslimad mu'minada haddee dhul gaalo ay timaadana gabadha muslimaddu waa muslimad mu'minad oo dhaqankeyga kama guurto 70,000 ee saaxiriintii Muuse calayhi salaam markuu ka guulaystay waa kuwa ilaahay rumayn doona ee nabi muusena rumayn doona orani doona aamanna bi rabbil aalamiin rabbi muusa wa haaruun aamanna waxaan aaminay nabi muuse calayhi salaam ayaan aaminay rabbina waan aaminay muuse iyo haaruun waan aaminay bay yiraahdeen rasuul ilaahay soo diray yihiin dana markaa fircoon waa ka 70,000 ee nin intuu qabtay buu gacan iyo lug buu isweydaar u gooyay way wada shahiideen dhalinyarada waxaan leeyahay muslim qofka muslimku diintiisa kama guuro buur way guuri kartaa buurta waa la wareejin karaa gebigeedaba qalab intoo la geliyo waad aragteen adduunka buuro dhanba intoo la qaaday ayaa badda lagu buuxiyey buuro dhanba intoo la qaaday ayaa godad laga dalooliyo baabuuro iyo wadooyin laga dhex sameeyey badihii guntoodii baa tineel la mariyey waa samayn karaa waxaas laakiin qofka muslimka muuminka iimaanku qalbigiisa uu galay diinta islaamka qofka muuminku kama guuri karo ugu muuminka waxa laga rabaa istiqaama laga rabaa inuu diintiisa ku sugnaado 70,000 waa shahiideen gallinkii hore saaxiriin bay ahaayeen jamaacatu fircoon bay ayaa intoo afarta adin lagaga taagay ma aragtaan qoryo ay ku dhiig baxday ayaa halka ku sankaraadaysa baadna waa loo diiday biyana wuu u diiday markaasoo fircoon uu leeyahay diinta muuse ka soo noqota mooyaane halka cadceeda naftu ha kaga baxda buu yidhi waa markay samada intay eegto ay leedahay rabbi ibni li indaka baytan fil janna wanajini min fircauna wa amalihi wanajini min alqawmi adh-dhalimin baytadi rabbi ibni li indaka baytan fil janna ilaahu aniga agtaada aqal iga dhis fircoon iyo amalkiisana ilaahu iga dheere qoomka dhaalimiintan ilaahu amalkooda iga dheere baytadi gabadhaasi waa cajiib bahay hatta fircoon markay dambe wuxuu u bandhigay baa la yiri waxaad ku tiraadaan ku noqdo oo hadda diinta Muuse aad ka soo noqotid oo aniga diintayda aad ku soo noqotid mar labaadna waa ku guursan aqalkii boqorkeed ku noolayd 30 sano 40 sano qasrigaad ku noolayna waad ku soo noqon doontaa ka dhahada buu ku yiri markaas ay u yimaadeen ilaadan aasiyay fircoon baan kaaga soconaa waxa uu ka yiri hadda diinta Muuse aad ka soo noqon lahayd dib baa lagu guursan lahaa aqalkaagiina waad ku soo noqon lahayd waa marka ay leedahay wanajini min fircauna wa amalihi wanajini min alqawmi adh-dhalimin ilaahu fircaun iyo amalkiisa iga dheere qoomka dhaalimiintan ilaahu amalkooda iga dheere bay tiri innaka dadka muslimiintu waxa laga yaabaa inay ku ducaystaan ilaahu dhul gaala irar oo ubadkayga halka iige oo halka nolol iga sii gabadhaasina waxay ka alla baryaysay qasrigii fircoon in lagu celiyo oo ay ku noqoto ilaahay bay ka magan gasho waxay ku ducaysanaysay ilaahu qoomka dhaalimiinta dib hay ugu celine ilaahu iga dheereeyay kii amalkooga bay tagi maalmihii dhaweydeen wadanadan aan u soo soconay magaalada Addis Ababa la yiraahdo baan joognay marka viisaha noo xareysna oo safaaradu baasaboorradii bay naga haysay masaajid Soomaalidu halka ay ku leedahay baan markaa ku yiri warnimada online baan noo xareysna bal loo soo duceeyo baan ku yiri waska fahmaysa online ka Soomaa markaas qaar baa yidhi sheekh annaka online dadka meesha joogay ku dhageysanaya online ka bay ku wada jiraane bal hadda noo soo duceeyo bay yiraahdaan musaafir oo khayrka kugu tuumeynaaye markaas aan ku adu halkeed ka timid burco Allah kugu celiyo baan ku yiri adigu xagad ka timid boosaaso adna boosaaso Allah kugu celiyo
kolkaas sidaa ugu duceeyay baa midiga dabay mid wuxuu yiri dadku way ku caroodeen sheekh waad habaartay buu yiri ma habaar ma soo duco war ma habaar ma soo duco duco إنك لفتين ودك يا داد جوكتان لكن دعاء ما دركتين وهذا هل كبركات تبادين الحقيقة دي صوت عبتين أي الليل ودعو آسية بنت مزاحم وحي لها ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين بيتني إله فرعون ليعمل كيس يقدره قوم كظالمين تان إله يقدره ودرس أنيك هيقول دقين إله وقت هذا أقل يقدس مركوي مادين أيوي مادين يدو قصل يسمى قصل يس سكفر أحسن هذا واقبض أفرتا الدين لقاقتاك مصابير باللقاقتاك قريو أفكو قال في قي أو وتد ليدا باللقاقتاك بالليدي مركاسي ديك بحدي بيلمسين بعد معونين maalmadhan bay sankaraata naftu halka bay ku soo ururtay markaa bay iska qoslaysaa markaas ciidankii intay fircoon ku noqdeen bay yiraahdeen war fircoon oo islaantana leedahay soo sasaba oo diinta Muuse ka soo noqota aadna leedahay way waalato way qoslaysaa oo isku daadatay bay ku yiraahdeen may waalane bal waxa la yiraahdaa qasriga jannada ilaahay uga dhisay ilaahay ay ka baraday ay daawanaysaa ay arkaysaa waxa ku dheer inta qasriga ilaahay uu geynayaba ku dheer daadna markaasay ku fircoon baa ku yiri war ku noqdo oo dhagax qaado madaxa ka dilay buu madaxa dhagaxa kaga dhiftaaba dhimatay khalaas intay dhagaxda soo guranayeen baa la yiri ayaa ilaahay ruuxdii ka qabtay gabadhaas ayadoo meeyda intay kor yimaadeen ayaa dhagaxa la dhaceen ma meeyd baa damqanay marka ruuxdeedii horaba looga saaray wa haweeneyda nabigu uu yiri kaleey salaatu wasalaam kamula min ar-rijali kathirun wa kamula min an-nisa'i qalil ragga inta iimaankooda iyo diintoodu ay dhammayska tirantay way farabadan yihiin buu nabigu kaleey salaatu wasalaam laakiin haweenka inta diintoodu kaamilka ay noqotay way kooban yihiin afartaa buu nabigu ka hadal qaado xuseen nabigu aasiya buu nabigu hadal qaaday maryam al-batul wa nabi ciisa hooyadii kaleey salaam buu nabigu hadal qaaday faatimo ina muhammad buu nabigu hadal qaaday khadiija radiyallahu anha al-mu'minin oo zawjadii weyneed ee nabigeena kaleey salaatu wasalaam ayuu nabigeenu hadal qaaday kaleey salaatu wasalaam marka gabadha muuminada iyo wiilka dhalinyarada muuminka waxa laga rabaa inay noqdaan dad diintooda islaamka ku faanayo oo aan ka faanayn diintaada ku faan ha ka muuqata diintaadu oo muslimku diintiisa waa inuu meel walba waa inuu ka muujiyo diintiisa intaad waa maxay halka diintu meesha ka muuqata gabadha diinteedu xijaabka ayuu ka muuqdaa bay leeyihiin culimadu ninka muslimkaana diintiisu waxay ka muuqataa waa salaada inuu meel walba ku tukado ninka dhalinyarada muslimka diintiisu waxay ka muujinayaa waa salaada bimaana salaadii markay soo gaadho meel kastuu joogo salaadiisa waa inuu la yimaadaa waa inuu tukadaa gabadhu inay muslimad ay tahayna waxa laga gartaa waa dharkeega ayaa laga gartaa siday u asturan tahay gabadhaas Allah ina fahamsiyo marka ilaahay baa inoo nicmeeyay alxamdulillah hada على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة يدا نقفل النعمة dadka adduunyadan jooga markay aakhirada tagaan islaamnimada qaadan doonaan laakiin ka soconay mayso waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun bal hum al-yawma mustaslimun ba ilahaydi malika qiyaamaha marka banka qiyaama bini aadanka la joojiyo إلا سؤال دونا محل سؤال دونا نعمتي إلهي أدونك دوشيدا وكسيي أي قفل بلغا حساب دونا نعمة عافمات كالا حساب تمي ونعمة أرزاقات لغا حساب تمي ونعمة أولاد لغا حساب تمي ونعمة اللحات كالا حساب تمي ونعمة بيها لغا حساب تمي وحال دونا جوجيه ما أنت ولا ويديني دونا محل ويدين إلهي نعمتي سيبا لويديني دونا مركبا دونا ما لكم لا تناصرون
adduunka intaad joogteen baatilkaad isku kaalmaysanayseen iyo qabyaalade maxaad maanta aad isku gargaari laadihiin baa la oran doonaa bal hum al-yawma mustaslimuun iska daabalan daalim iyo maaragtaan dulmi in isku gargaarsadaan maalinka baa ilaahay waa wada muslimiino dadku ilaahay abuuray u hoggaansan yihiin laakiin islaamnimada halka ilaahay loogu hoggaansamaya ma soconayse waxa soconi doonta islaamnimada adduunka dusheeda qofku uu qaato taas aakhira wax tari doonta ugu taas qofka muslimka wax tari doonta islaamnimada qofka anfici doonta marka si fiican dhagihiina ii siiya zamanka iyo dadka iyo makaanka saddexda qofka hadduu eego quus bay ku ridayaan quusasho waad quusan laakiin qofka muslimku saddexda midna ma eego ogow zamankan haddaad eegtid zamanku waxa uu ku leeyahay diin inaad ku dhaqantaa oo diintaada muslimka aad haysataa oo diintaada aad barataa oo diintaada aad ka shaqaysaa zamanku waxa uu ku leeyahay way adag tahay mujtamaca dhex joogta markaad eegtana mujtamacii waxa uu ku leeyahay diin may halkan diin kama soconayse qof walba waa xor buu leeyahay wuxuu doona ha sameeyo waddankaad joogto waddan islaama ma aha oo waayo masaajidadii arki maysid adin maqli maysid ma arkaysid ilaahay dadku xasuusiya inta badan meeshaad martaba waxaad arkaysaa wax ilaahay ka cadhaysiinayo iimaankaaga dhaawacaya baad arkaysaa saddexdaa markuu hadduu qofku eego waxaa la yidhaha qofku quus bay ku ridaysaa quus saddexdaa qofka muslimku ma eego meel fiican ayaan joogaayo diinta islaamka waan qabsanayaana ha eegin xataa meel wanaagsan qofku hadduu ku nool yahay waa inuu qofku diintiisu ay ka noqotaa caqiide iyo iimaan waa inay ka noqotaa inay ka noqon maaragtaana mujtamacu dhex joogo xasanulbasri allaha u naxariistee ayaa inan dhallinyaro ardaydiisa ka mid ahaabuu warqad u dhiibay wuxuu ihi warqadda waa dardaaran baan kuugu qoree dardaarankaasi waa 4 kelmadood 4 kelmadood 4,000 oo kelmadood oo dardaarana way kaaga qiimo badantay 4 dhageysa buu ka yidhi oo si fiican 4 mas'ala u faham meel fiican baan joogaayo lumi maayo haysdhihin buu yidhi nebi aadam calayhi salaam ilaahay jannadu geliyey isagii xaaskiisii jannada meel ka fiicani ma jirto nebi aadan iyo xaaskiisa jannada lagu dhex ikhtibaaray imtixaankiina way ku dhaceen jannadiina waa laga soo saaray buu yidhi caabid baan ahay oo cibaado badan baan leehayna oo anu ma lumaayo haysdhihine waayo ibliis cid ka cibaado badnayd ma jirin meel samada ku taallu ilaahay uusan ku caabudin ibliis ma jirin baa la yidhi haddana waa la ikhtibaaro waxaa lagu imtixaamay aadam sujuudiisii baa lagu imtixaamo uu ka dhaga adeygay isagana halkaa imtixaanka uu ku dhacay deedna jannadii ilaahay waa laga soo dhex saaray iyo naxariistii baa laga soo dheereeyey isagana rajiim baa laga dhigay cilmi baan leeyahay oo meel fiican aqoon diineed baan leeyahay oo anu ma lumaayo oo diinta islaamka waa naqaanaayo ma lumaayo waxba mujtamacan iga qaadi maayo ha isdhihin balcam binu baacuura ninka la odhan jiray nin reer bani israa'iil buu ahaa ninkaasi nin ismullaahi alacdamka magaca weyne ilaahay lagu alla baryo ee ciddii ilaahay ku barida ilaahay ducada uu ka aqbalo ayuu ninkaasi yaqaanay baa la yidhi maca daalika haddana ilaahay waa imtixaanay isagana deedna diintii qalbigiisa ilaahay waa ka dhex saaray dad fiican baan la joogaayo culamo iyo ducaad iyo awliye iyo dhex joogaayo ma lumaayo iyo reer awliye ka soo jeedaayo ma lumaayo hays odhan buu ka yidhi nebi maxamed calayhi salaam cid ka fadli badan adduunka ma soo marin munaafiqiintii iyo mushrikiintii nebiga hadalkiisa wacdigiisa maqli jirtay intooda badana gaalnimay ku dhinteen buu yidhi agjoogay nebiga agjoogeen waxba uma tarin buu ka yidhi marka qofka muslimka waxaa la doonayaa dhagaysta haweenow iyo ragow waa inuu qofka muslimku uu noqdaa
qof mar walba cabsoonayo ilaahay ka cabsoonaya qof mar walba ilaahay cilaaqo la waa inaad ahaataa xidhiidh ilaahay la yeelo waa inaad ogaataa adduunkan waa daarul ikhtibaar weeyaan daarul ikhtibaar baad ku jirtaa imtixaan baa kugu socda awlaadaadaa lagugu imtixaami gabadha ninkeedaa lagu imtixaami karaa ninka xaaskiisaa lagu imtixaami meeshaad joogtaa lagugu imtixaami dadkaad dhex joogtaa lagugu imtixaami waa inaad noqotaa qof muslima oo soo jeeda oo aanan hurdin oo mar walba ilaahay amarkiisa u soo jeeda waa inaad ahaataa laga doonaya dhulkan dadkeennu ay yimaadeen dad badan oo muslimiin ay naga soo horeeyay daadka ayaa qaado daadka ayaa la tagay innaka dhawaan baan imana dhulkan waxaad timaadeen dad isku wadan ma nihin runtii isku kalar ma nihin isku midab ma nihin isku luqana ma nihin isku diin ma nihin isku dabeecad isku dhaqan ma nihin ogow sidee marka aad ula jaan qaaday waxaad ula jaan qaadaysaa waxa weeyaan waa inaad ogaataa waxaad ku badbaadaysaa adigu xadhiga ilaahay qabso wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu xadhiga ilaahay qofku hadduu qabsado ma lumaayo ogow oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa qur-aanku waa xadhigga ilaahay xadhigan darafkiisii ilaahay baa nii soo dhaadhiciyey qabsada buu nebigu yidhi xadhiga dhinaciisii kalena ilaahay baa haya buu rasuulku yidhi hadduu qofku diintiisa uu qabsado uu dadka eegin uu zamanka eegin uu dalkan u eegin uu eega maaragtaane xadhigga ilaahay baan haystaa anigu oo yaa ku dayanayaa abubakar baan ku dayanayaa cumar baan ku dayanayaa oo gabadha muslimaddu ayay ku dayanaysaa aasiyaan ku dayanayaa maryam albatuul baan ku dayanayaa ummu sulaym baan ku dayanayaa ummu salamaan ku dayanayaa radia allaahu canha nacam dadkaasaan ku dayanaynaa dadkee waa dadkii ilaahay adduunka ayaka oo jooga ilaahay uu raalliga uu ka noqday waa dadka islaamnimadu wax waliba ay kala weynayd awlaadooda islaamnimada awlaadoodii islaamka weynaa awlaad islaamnimada iyo naftooda islaamnimada ayaa kala qiimo badnayd ummu sulaym radiyallahu anha markuu nabigu madiina u soo hijrooday reer madiina nabiga way soo dhaweeyeen laakiin iyadu waxay ku soo dhaweysay ma taqaanaan ilmaheegii bay nabiga hadiyad ugu keentay ilmaheegii kaliya ay lahayd way u baahan tahay ilmaheegu inuu adeego walaakiin waxay ka doorbiday tidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina iminku yimiday cid u adeegto u baahanaya kollaybe anas oo nabiga la joogo nabiga u khidmay adigu dadna waa anas allah raalli ka noqdee ducadii nabigeena uu ka faa'iideystay calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa 10 sano ayaa nabigeena u shaqeeyo u adeegay waligay allah nabi maxamed kelmadda uffa u yaro iguma dhihin waxaan sameeyayna ima dhihin maxaad u samaysay waxaan sameeyay iguma oran maxaad u samaysay waligay maan arag buu Anas bin Malik cid nabi maxamed ka akhlaaq wanaagsan ma arag buu yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Anas soo yarbe hooyadiinta qaada nabiga u keentay tii yaa rasuulallah ku adeega kani islaanta miskiinada magaalada Madiina dangan baanahay hadiyad kaloon anigu kugu la imaado kugu soo dhaweeyo ma haysto laakiin ilmahayga baa ku siiyay ha ku khidmaya bay ku tiri gabadha muuminada saalixada waxa laga rabaa inaad ka fikirto maaha dhashaada meesha ku cayilayaan ha ka fikirin meesha ay wax ka baranayaan maadadu uga kordhaysa ha ka fikirin waa inaad eegtaa meesha ilmahaaga diintoodu ay ku badbaadayso alla isweydiin ogaada awlaadaadu waa nicmad ilaahay ku siiyay halka degtay nicmadii qiyaamaha waa lagu weydiin doonaa thumma la tus'aluna yawmaydin 'anil na'im nicmadaha la isweydiin doono waxa kamida waa awlaada laana awlaada ilaahay baa bixiya dad baa malaayin lacag haysto bilaa ubada dadna ubadkooga waxay ka doorbiteen inay ay haystaan ubadkooga iska eriyaan ama ubadkooga qalada u dhaafaan bedelkii ilmaha ay la noolaadaan amma adiga gabadha muslimada wiilka muslimka waxa ilaahay nasiiyay dhaqan islaamiya oo soo jireena marka dhaqankeeni sidee ilmaheen u haysanaya oo diintooda u baranayaan waa inaad ka fikirtaa meesha diintoodu ku badbaadayse meesha calooshoodu ay ku buuxsamaysaa ka fikirin meesha calooshoodu ay ku buuxsamayso raashin qiimo male
dhar fiicanna qiimo ma leh wax bini aadanka qiimo u yeelaya maaha raashin fiican buu cuno u cayilay wax qiimo u yeelaya maaha falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati addunya ilaahay baa nebigiisa ku lahaa xoolahooga faraha badan leh haystaan iyo awlaadooda cayilan ee quruxda badan leh ha ku degmin baa nebiga lagu yidhi waayo waxaan doonnay baa ilaahay yidhi iyakoo waxaa haysta haddana in adduunka dhexdiisa ku cadaabnaan doonnay baa ilaahay yidhi kuwaas war qofkaan muslimaan ahayn ee diintii islaamka aanan haysan ee diintiisa aan ku dhaqmaynin wallaahi cadaab buu ku jiraa cadaab buu ku dhex jiraayo ogaada waa markhaati madoonto ininka iga xogogaal badan dadkiina qurbaha ku nool mujtamacaadka inaad dhex timaadeen inaad ka nolol fiicantihiin boqolkiiba boqol baan aaminsanahay waayo adigoo qof muslimaad oo qadarkaad aaminsan tahay aakhiraad ku xisaabtamaysaa silatu raxim baad leedahay oo labadaadii waalid baad xidhiidhinaysaa oo qaraabadaadii baad u samafalaysaa walaakiin mujtamacan aad dhex timaadeen waa mujtamac innaka inooga baahan inaan diin iyo dhaqan fiican aan barnee inaan mujtamacan saan u fahmnay muslimiin badan ka dhaadhacsan tahay ayakaa kaa horumarsan maahine xagga dadnimada adaa ka horumarsan ogow dhulka iyo dhismaha way ka horumarsan yihiin laakiin xagga dadnimada muslimka horumarsan muslimka miiga jooga ayaa cid walba maanta ka horumarsan ogaada bari aan wadanada gaalada aan joogay baan mid wareystoon ka yidhi war dhulkan aad timaadeen bal ka warrama maxaad kala kulanteen wuxuu yidhi dhulkan dadku jidhkay ka koraan laakiin caqliga kama koraan buu yidhi ama dhulkeennii dadku jidhka waa ka weydo waa dad naxiifa laakiin waa dad caqli badan oo intelligent buu yidhi intelligent oo caqli badan buu yidhi ha eegin ilmahaagu meesha uu maaragtaanay daahirka noloshu ay ugu hagaagaysay dadnimada qofka ayaa la eegaa dadnimadiisu halkay ku hagaagaysaa balaayo keliya dadkeenu ka soo ordeen laakiin 10 balaayo dadku cagaha la soo galeen maanta siday uga noqdaanna garan maayaan mujtamac innaga iga xogogaal badan ku dheeraan maayo runtii waa dad waxaad u timaadeen masaakiina adduunyo way haystaan laakiin aakhira ma haystaan makhluuqa way yaqaanaan sida looga faa'iidaysto laakiin sida ilaahay loo caabudo ilaahay loo raali geliyo garan maayaan xataa bacda almowt maxaa jira garani maayaan laqad kunta fii ghaflatin min hada fakashafnaa canka qidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid dadka aan islaam ahayn ee gaalnimada ku dhimanaya maalinkay dhintaan waaga u baryi doona uga uyaka markaasay neceli leeyihin neceli yalay soo celinaya khalaas meel lagu soo noqdo maaha adduunyadu khalaas marka sideed adigu ku badbaadi ubadkaaga ku badbaadisaa ummu sulaym radiyallahu anha ilmaheegii intay gacanta soo qabatay bay nabiga u keentay oo ha ku adeega adiga dad waxay hayeen la baray meesha khayrku ku jira baa la baray yaka markaasay ku tiri maalin Anas hooyo waa daahday halkeed ku daahday maanta markaasuu hooyo nabiga meel ii dirto adeeg baan ku maqnaa markaasay ku tiri nabigu muxuu ku dirtay bal ii sheeg markaasuu hooyo sirtaas aniga nabiga naga dhaxayso cidna u sheegi maayo markaa bay ku tiri waa runtaa sirta nabiga cidna ha uga sheegin maalintuu nabigu dhimanaya calayhi salaatu wasalaam ee xanuunka uu la dhacay bay u timid ummu sulaym waxay tiri yaa rasuulallah ajal baa loo dhimanayaa dawaadigan adiguna iska jiif haddii toole khaadimkaagii Anas waa kan dabalu ducee markaa buu nabigu 3 shay ugu duceeyay in ilaahay xoolihiisana u barakeeyo awlaadana ilaahay u barakeeyo cimrigiisana ilaahay u barakeeyo cimrigiisa ilaahay waa u dheereeyo boqolka kor buu u dhaafalay saxaabigaas awlaadiisa ilaahay waa badiyo wiilashii uu dhalay iyo wiilasha ay dhaleen 120 isagoo ah iyakoo ah ayuu cunto la cunay baa la yidhi arimisa 120 waa wiilashiisii iyo waxay sii dhaleen gabdhuhu waa gooni iyo kalama sheegi tiradooda waliba Anas isaga ka sheekayo yiri 100 anigu aan dhalay waana soo waan duugay buu 100 ubada shafaac muslimiintana ahdigii la joogay xilligaas ninka ugu dhaqaale badan buu noqday markaas uu oran jiray ducadii nabiga barakadeedii waa taas arka buu oran jiray cimri barakaysan ayaa ilaahay siiyay awlaad barakaysan baa ilaahay siiyay xoolo barakaysan baa ilaahay siiyay diinta hadday dadku ay bartaan
oo diinta ku dhaqmaan oo diinta ka shaqeeyaan oo diintooda qabsadaan oo diintooda ku fara adeegaan inay ku barakoobaan ay ku hagaagaan ay ku toosaan mooyaane diintu waxba ka dhimi mayso ogow ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين نبي الله هود عليه السلام قوم جيسا قوم عاد مركو حق إلهي أقوي يدي وحو كيري يا قوم كيجيو إلهي أصو النقضة وإلهي أطوبت كينا ودنبقات كجرتان إلهي دمدافك ويديستو صو النقضة ومحال هليسان سماد الروب خير قبا إلهي نيغا كينيا حولينا إلهي نيبارا كينيا قوة داعات شيغانا إسانا لا نيغا دي مايا قوة كلا إلهي نيغو بيرين بكو يدي دين الإسلام هو حيكو كورن السمو يعني وحبا كادي ميسو لكن مسلم ما أنت دين تالكيت كتاقلتها يا دقو أين أنت من الإسلام لا تبادن دول كالمركي ما دين دول نركي دكتين قبل بدن وحالا شاقيا نركي بين دكتين بل يربضن وحالا شاقيا قاركود إلا شاقيا جنة وابتن مدبار جنة وابتن بوري habeen madooba qaxootiyada Kenya laga soo qaado London baa lagu dhex tuuray UN ka soo qaada leeyay jannadii waa tan bur jannadii waa tan war janna ma ahayna waa duleedkii jahannamaad timid ogow ma aha janno badweyn baad ku soo dhex dhacday sida looga badbaadayna ma garanaysid فنصيحة يدو وحوين يقول نستحيين ولا ليال إن النقطان الدين تو ده كفر هذا إن شاء الله ده هذا إن شاء الله ده هذا قبل ده صالح حد وناكسن أستانت النبي قاشيقو يدي خير النساء دمر كتير وقو خير بدن بالنبي يقول واتي من إذا نظرت إليها سرتك بالنبي يقول واتنين كيدو مركو إيغو كفر حسمر والله وإذا أمرتها بنبي ولا أطاعتك هذا الأمر أتسي سنة وتكويا لسنك إذا يشاء وإذا حفظت وإذا غبت عنها هذا كم مغناتنا يدنا إلى الشن وحين كيد ودي بتنوصيها يسب رسولك يلي مرأة المسلمة دقيسو نلش أدويد وتعاون بنقد حياة تعاون رجونا ويمغليان موضوع كساب سنجكنا هرتينا أيام كل شيء دونا إني كان موضوع إنه كساب سماني شيء دونا نلش إلهي بسكوت ديل تري ركلي أدويدكم من نولان كرام كذلك والله مد هواك لي أدويدكم من نولان كرام لبضوا بسكوت ديل تريهين بني آدم كل كليكم الصعون كرو إنه طلاب صد الله بلغود بوبا هاي نلش أدويدنا والله بدو قفل لما أنه مركز كتير صدان أي نلش أدويد الله بدو قفل توصي سايو وجدا آدم عليه السلام مركي الله أبوري روبا لقى أبوري كلجي ما استقر قلبه سوى حصلي ويبيع علماء دوليهين قلبه سوى نبي آدم وهو حصلي وقورما ومركي فيدا لقى السوق هذا فيدا سال لقى السوق هذا مركز أمنا حوابا لقى أبوري وهلكي سمركو نبي آدم وهلي أيو حصلي ليسكن إليها مركز كو حصلي قبضوا مركي جورستنا ويحصلي سا نكدا ليرادو مركو قبض وناسنو جورستنا ويحصليا لبدا إلهي بسكوت اللي تري أوجادا رجونا هوين لان من نولان كريان هوين كنا رجل لان من نولان كريان علمهنا هو يكلي كما في التربية دودا أبا كلينا كما في واسكوت اللي تري لبداس هو يدا استفادة دو رحمة الريركا أوباهن أباها استفادة سواء أذيك أذيك علمها أوباهن ماشان أذيك لك مرة بانو ملايين يدوركن وربا لك الربا قال إنه المسكين جونين دليرتو نقول قيلين عيال كيريا واسك عيارا يعني مركز أقول ورعيال كان نجا مسيا بدأ يقول شيخ حسين هل كان عيالك مسلم أوران كره حديث كي وعدك النوود بقول هذا كسره مركز أنا لو محا مسلم أوران كرينو سؤال ما هي إن أدبت الله برمها ما يحدو توله سكول كمركو تقال الله ورئيسنا وحال ورنا يا حافظ يا أبها كورن أبا شليت ولا مال مسكيد ويجيو ودرباحي مركا والله قادم بدي لقى قاتك بقى ينبود لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله
مدير دلنيرا هايو سودا كل شيء وسفر كان يمكن نصور عود إحدى كان نقضي أيام كل وريا هاشم عقد يوديب مركز الشيخ حسين دول كان قفك أمر لمس يبودي المهير أمر لمس يبودي ها سكول جو حلا نقول برا عقد ما يودي بكريسة بركنت ما يودي بكريسة موبايل كما يسوق هذه كريسة متبقى أبيه إلى كيسيب كويري لعقتي هيبو أبيه وبكبه أدري وده كله أدير كي على لو بكاء لعقو صدر مركا إلى كيسيب لي أبه صدق بقوله يورو ما أماهن كريسة مركز هذه العقد هذه مي مركز أباه أو جيران أو دكتور لو هي ندر العقتي مركز هذا أباه محاك أقل محد قدريسة دقن كأدحت مع دين بنوع عصا مركز أقول أدرك وين هذه كانوا أوجا أباه يبولد شيء مركز أنا ما أقنا بودي هذا العقد هذا إسكا هيسو هو العقد هذا إسكا هيساتو قفل بوحيس الله داف مركز هاي ما أنا أوبهن وأكوسين لكن ما أنت يسوع علي الماء أبيه العقد ما هنا كورما لا إله إلا مركز مجتمع إذن ومن كل شيء خلقنا الزوجين لعلكم تذكرون بإلهي ومن كل شيء كستو أدونك إلى لبن نوع بان كدقني بإلى لبن عين ضد عر دول كليل قبو دلشو دمشو فقير غني هوين رق حنون عافمات جيري قبو فرحد مرق إلهي بان الله أساس كل دل ترى وجادا مرجع هوين كلينا iskood isma taagi karaan oo ilmaha ma tarbiyadeyn karayaan rag kaliyana haday noqdaan ubadkooga ma hayn karayaan waa run shaqada dibadda ragga ku fiican shaqada gurigana haweenka ku fiican gabadha baa la aqalka dhexdeeda boqol mashkaladood oo aqalka dhexdeeda la soo darsa gabadha muslimadu way xamili kartaa hooyadu aqalka dhibta culayska aqalka yalla way u adkeysan kartaa xaga mid baa kaga qayli حاجة أودعك كو قيلي حاجة إنتا كو قيلي حاجة كيربا أوي حاجة مد بابوكا حاجة مد بواحدونية أنت أبوه يدو يودر رالي قلين قيل هذا أقل كهو يدو وصبر تابع ليدي لكن قبضوا هذا يقولي كب حضو قبض درسك وذا هذا الكلي هذا يصدف صدام وحصور قلين يسكت عنه وما حمل كريسو وما أتكسر كريس هذا الكذبة حالك الرجونا هذا الكذبة بقول هذا الله صوح الله ووات كيسن كران لكن لبا المودقل كدحديدا كوما هين كران وايو غوريغا دحديدا markay noqoto adkaysiga guriga dhexdeeda gabadha iskale waa sifo dumarku ay leeyihiin raggu ma xamili karaan raggu dibadda qaylada dibadda ay xamili karaan gabdhuhuna qaylada dibadda ma xamili karaan laakiin buuqa iyo sawaxanka aqalka dhexdeeda gabadha waa adkaysan karta lidaalika waad ogtihiin waadna ogtihiin laba ilmaana kuma hayn karayno mid ma hayn karayno dharka ka bedeli karayno gabadha la labaatan ubada intay dhex fadhiisato ay mid walba raali gelo mid walba wuxuu doona siin hooyada sifadeedu marka waa raxmad ilmuhu raxmadda waa u baahan yahay aabaha sifadiisuna waa adayg gaar ragana ilmuhu waa u baahan yihiin lidaalika haday dumarku ay ragooga intay isku dhacaan ay ninkayga reer ka dhaafiso ilmahaagi waxaad ogaataa tarbiyadiisa kuma filid adigu iyo ogow kuma filid waayo sifadii aabuhu lahaaba aqalka ka maqan ogow arabku waa jilaac waxbuu dhadhamiyaa carabku ilkuhu waa adayg waxbay jajabiyaan labada way wada joogaan oo isku baahan yihiin oo ma kala marmaan ismana diidaan oo ma kala tagaan labada waalid waxa la doonayaa maadaama ilaahay dhexdeena ubad u dhigay oo laba lamaana ilaahay uu naga yeelay noloshayna ku tacaawuna loo baahan yahay oo gurigeena iyo ubadkeena aan hareeraha ka wada joogno hareeraha oo haday gabadhu ay noqoto gabadh akhlaaq wanaagsan waa inay ninkeeda u sabirtaa waayo raggu iyaguna in fiicanna way yeelan karaan in xunna way leeyihiin halka gabdhuhuna gabdho wanaagsan ay jiraan gabdho aanan wanaagsanayn oo iska dabeecad adagna way jiraan marka marba hadii ilaahay uu qoys inaga dhigay waxa la doonayaa inaad isku dul qaadataan oo isku sabirtaan oo cafiska ku wada joogtaan cafis wal caafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin xuquuq laguma wada joogi karo oo ninka xaqayga hay garto aba xaqiisa waan siin markaas haday sidaa dhacdo lama wada joogi karo
waxaa suuragala inaad xaqaaga boqolkiiba boqol ninkaaga aad ka helin adigana waxaa suuragala gabadhaada xaqaaga iyo boqolkiiba boqol inaad ka wada helin marka waxaan ku wada joogaynaa cafis maxaan ku wada joogaynaa cafis waan iscafiyeynaa waan isku dul qaadanaynaa waan isku ducaynaynaa insha Allah dhahada sidaa ma ku ballanaa war sidaa ma ku ballanaa saalixaadoo sidaa inaguna ma ku ballanaa cafis waayo waxaan sidaa u leehay safarka hadda aan soo galay waxaan la kulmay reero badan oo burburay baan soo arkay reerihii markay burbureen labadii waalid isku dhaceen kala boodeen ciyaalkiina dhexda ka baxeen maanta waxa la ii sheegay haweenay saddex ubadoo ay dhashay labadii habloodna laba cadaana ay raaceen wiilkiina isaguna uu mid kale u qaatay hooyadii kaliya aqalkay ku soo hadhay ay ooyso markaasaan wareystay maxaa sidee wax u jiraan hooyadaas maxaa dhibta ugu dhacday bal ii sheega nin baa igu yidhi bas hadalka waan iska daayaa يا قبل دمركم مظاهرات يقول سمعي وشاقي لأن أنا مظاهرات كوك وحبايق قادم ما يصان ضمنا ديارات الراعية موقتها بس هي سعودة وحنو الشاقي يعني هكدكتون هذان ما قبلهن ويوضحونيهن مي ووناكسيهن إن شاء الله ووناكسنتهن عليس كما أنت أوبتك إنكو إنكو دعيا laakiin mid waxa laga yaabaa nidaamkii aan ku noolaan jirnay intay garan martay dibtiina iyada ay ku soo noqotay waxay ii sheegeen saddexda ilmood ee islaantaasi ka maqan oo dhanba saddex aabba kala dhashay nin walba kii horeeyay aqalkay ka saartay kii labaad aqalkay ka saartay kii saddexaad aqalkay ka saartay gabadhu hadday ninkeeda xaqeeda ay garani weydo ku noqoto naag amar diidaysa oo ninkeeda ku dhaga adag haday noqoto oo dhaqanka dalkan ka jira ay ninkeeda kula dhaqanto inkaarta iyo cuquubadu markaaba ilmahayga ka soo baxda halka ninkuna hadduu labadiisa waalid ku noqdo caaqul waalidiin hadduu noqdo isagana cuquubadii inkaartu ilmahay kaga dhacda gabadhana baa la gabadha muslimada haday ninkeeda ku noqoto maaragtay naag amar diida ku sameynaysa oo amar diiday madax taag iyo dhaqan xun ninkeeda haday kula dhaqanto inkaarta iyo cuquubadu ilmahayga kaga dhacda markiiba marka u tura ubadkiina oo waxaan leenahay gabadha saalixada ee wanaagsan waa ka nabigu sifaadkayga uu sheego wuxuu yiri man nadarta ilayha sarratka bu nabigu yiri waa gabadha hadaad eegto ka farxinaysa hadaad amartana ku adeecaysa hadaad ka maqnaatina waxaad u dhiibatana way ku ilaalinaysaa iyaduna waa gabadh dhowrsoon buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam raggana waxaan leeyahay dhageysta waxaad ogaataan adduunya mataac buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam adduunyadu waa mataac adduunyadu waa raaxo yar buu nabigu yiri waa raaxada adduunyada ninka ilaahay uu siiyeyna waa ninka ilaahay gabadha wanaagsan uu siiyey gabadha Soomaaliyeed wadanada imika aan soo marayay gabadh ka wanaagsan kuma arkin aan intaan arkayay waayo waa gabadha kaliya iyadoo xijaaban oo niqaabkii sidata jidadka ka talaabaysa moolalka intay gasho badeecada ka soo iibsanaysa cidna aan u joojinaynin cidna aan ka haybaysanaynin iimaankeega iyo diinteeda muujinaysa gabadha Soomaaliyeed wallahi shalay toole hooya ila timid inaan ay wado way xijaaban yihiin asturan yihiin سبحان الله لح ساعات بيقول ترى يا خوص وصعننا كلا نادقة قبل دايقة حنوسنا يقول دعية مركزنا يقول دعيني لح ده ساعات وحي صوص صارناين ترين بصوص صارناين ترين كاس وحن أنا أقول مسكح ده السويدية والله ده كان إلهي إيمان بكم من الصومالي ده بل لبدا قفاق لبدا قبض هو ينتهي دي حجاب جلباب كيستان عيدي كبغيان مجرتو عيدي وابياليان مجرتو عيدي كعبسانيان مجرتو إسلام نمدي بأوروبا قبضة مسلمة دي الصومالية أي دين دي إسلام كقول نحمو جسمانت marka gabadh wanaagsan baa ilaahay nisiiyay ragana waxaan leeyahay inakuna war gabdhahaas noloshu waa tacaawun bay ku dhisantahay tacaawun istacaawuna oo ubadkeena maaragtaan noo wada ilaaliya oo diinta aqaladiina geliya
oo aqaladiina quraanka ku dhex akhriya oo abeen kastaba aqalada 2 xadiis 3 xadiis ha loo akhriya maaragtaan ubadka oo ha lagu tarbiyadeeyo dhaqanka wanaagsan Anas ibn Malik radiyallahu anhu ayaa oran jiray aqalka quraanka lagu dhex akhrisanayo ee sunnada nabi Muhammad alayhi salaam lagu dhex baranayo sida xidigaha samada inaku aanu aragno ayay malaa'iktu aqalka u arkaan buu Anas ibn Malik suuratul baqara aqalka lagu dhex akhrisana buu nabigu yiri shaydaanku aqalka ma soo galay waa ka farxa buu rasuulku yiri marka walaalayaal waxaan ku dadaalaynaa inaan aqaladeena maaragtaan quraanka ku dhex akhrisano oo diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala ku dhex barano oo maalmaha la fadhiyana aan masaajida inoo dhow ilmaheena intoon macallin u qabsano aan quraanka barno bal labada cisho kaliya maaha weekendige 5 maalmood baa ciyaalka quraanka la bari karaa hadday gelinka hore iskool leeyihiin gelinka horena quraanka la bari hadday gelinka hore iskool leeyihiin gelinka dambana quraanka la bari waxa kale oo ogaataan waalido ay dhageysta dhaqanka labada waalid ilmuhu uu ka arko ayuu ku dhaqmayo ogaada hooyada wanaagsan ilmo wanaagsan bay aqalkeega ka soo saari waalidka aan wanaagsanayn ilmihiisu lumiya ogaada waayo gabadh xumaatay baa la yiri gabadh diin ku dhaqmi weyday oo diintii qaadan weyday oo nabigeedii khilaaftay ilmo nabi uu dhalay iyaduna karkaarka weydarsay gaalnimo baday baa la yiri waa zawjadii nabi nuux alayhi salaam aqal nabi uu ku soo hooyanayay ilmaha ku noolaa waxa gaalnimada guriga galiyay ee ilmihiina baday inuu gaalnimo ku dhinto waa hooyo xumaatay ogaada hooyada wanaagsan ubad wanaagsan bay adduunyada ku beertaa fa waxaan ku dardaarmaynaa oo ku talinaynaa mar walba inaan guryaheena aan diinteena gelinaa oo gabadha muslimadu ay noqotaa gabadh guri jooga oo gurigeeda ilaahay ku dhex caabudaysa oo gurigeeda quraanka ku akhrisanaysa oo ninkeedii ubadkeegana guriga dhexdeeda ugu adeegaysa oo diinta ilaahayna azza wa jalla danaynaysa waa inay noqotaa guurkana fudaydiya insha Allah maxaa fudaydinaynaa guurka qaaliga naga daaya guurka fudaydiya waxaan maqla dhulkan meherku waa qaali bari baan meher ka qayb galay oo markaasaan $12,000 buu ahaa meherku markii caqdiga uu dhacay baan ki yaraaya aroosada guursaday baan ku yiri lacagtu way kugu badan tahay ma bixin karaysaa haday gabadhaas way kugu leedahay waa xaqeedii markaas maye arinta ma ku dhameynaya buu yiri ma ku dhameynaya arinta ma ku kala tuuraya buu ilaahu na kala tuurin aamin dhahada raaxabarku kala tuur haday ku dhahdaa waa khatar moogtahay marka waxaan ku talinaynaa fudaydiya insha Allah dhahada laana aroosku ka kharash yar yahay ayuu ka baraka badan yahay buu nabigu alayhi salaatu wasalaam fudaydiya insha Allah sunnada nabiga waafajiya qaribu wasaddidu ba nabigu qaribu amalka xiriiriya buu nabigu wasaddidu toosiya oo ku toosiya kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga alayhi salaatu wasalaam nolosha marka sunnada nabiga xageeda lala soo aado noloshu waxay noqonaysaa fudayd bay noqonaysaa laakiin nolosha marka sunnada nabiga la garamaro noloshu xiriiri bay noqonaysaa iyo culays bay noqonaysaa marka gabadhana waxaan leenahay adiguna ninka dabeecadda wanaagsan la diinta wanaagsan la doono ninka dhalinyarada waxaan leenahay adiguna gabadha diinta ku gabadh diin la doone xaga quruxda iyo lacagta iyo reerka ha eegine gabadha diinta haysata eegta buu nabigu laana gabadha diinta leh way kuula noolaan way ku sabri way ku adkaysan ubadkaagana dhaqan wanaagsan bay kugu tarbiyadayn gabadha muslimaduna haday eegta ninka dhalinyarada diinta fiican leh dabeecadda wanaagsan leh ubadkaaga iyo adigaba xaga khayrka iyo xaga diintu ku horseedaya markaas waxa kale oo ku dadaalaynaa shaqo xalaal ka shaqeeya insha Allah dhahada maxaa ka shaqeynaynaa shaqo xalaal xaraan hadaad ka shaqeysid waxaad ogaataa cibaado iyo dhaqan wanaagsan waad isdeyseen ugu laana xalaasha iyo cibaadada cilaaqa ka dhaxaysa halka xaaraanta iyo macsiyadana cilaaqa ka dhaxayso yaa ayyuhalladheena aamanuu kuluu min at-tayyibaati wa'malu saalihan ilaahay baa quraankiisa ku sheegay yiri
yaa ayuha aladiina aamanuu duulkii ilaahay nebiga rumeeyeyow camal wanaagsan arsaaqada xalaasha cuna baa ilaahay yidhi camal wanaagsanna ka shaqeeya xalaasha iyo camalka wanaagsan baa ilaahay isku lifaaqay lidaalika reerkaaga xaaraan ka ilaali gabadha muuminada saalixadana ninkaagu wuxuu ka shaqaynaya iska fiiriyo gabadh salafka ka mid a ayaa ninkeedii oo kallahaya bay ka daba hadashay ku tiri war xaggeed u baxday ood u socotaa markaasuu ku yidhi waan inoo maaragtaane shaqo ayaan noo raadinaya waan noo kasbi doonaya kasbi xalaala markaa bay ku tiri ilaahay nagaga cabso aniga dhashayda ilaahay nagaga cabso aniga dhashaydu gaajada adduunyada waan u adkaysan karaynaa laakiin naarta aakhira u adkaysan kari mayne luqmad xaaraan aqalka iga soo gelin bay ku tidhi ninkaagu waxuu ka shaqeeya iska fiiri wax fiican ka shaqee xalaal ka shaqee xataa waxa mushtabahaadkee u dhexeeya ka dheerow wixii mas'alo diiniyeed garan weydana culumma idinla joogta ilaahay fadligii waa kuwa idin abaabulayni kulmiyey weeyaan meel kastoo taga dadkeennu waxaan arkay dadka maanta masaajidda ugu badan ee ku tukanaya waa Soomaali gabdhaha asturan ee qaaradan dhex socda waa Soomaali masaajidda dadka tujinaya ama ku tukanaya waa Soomaali waxaan isiri waniyo dadka Soomaaliga qofka Soomaaliga khayrkan muxuu ku helay waxaan ogaaday laba shay baa ii soo baxday laba shay kow dalkaad ka timaadeen waa dad boqolkiiba muslima weeyaan waa dal saxwa diiniya fiican ay ka socoto oo kii tagaba dhaqan wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan buu kala imanayaa marka labaadna dadkiina soo baxay qaaradan u soo gudbay culumma ay nila socota dad diinta danaynaya ay nila socdo waa kuwa ay abaabulaya ee ka fikiray mar walba meeshii culimadu ay nagula kulmi lahayd inay niisi habeeyaan lidaalika culumadiina ku xidhnaada waxalli wixii tallaabo aad qaadaysaan hadday guur tahay hadday guuritaan tahay hadday maaragtaan shaqo tahay culumadiina weydiiyo u soo noqda fasaluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun annagu jamaacadka dacwadda ee qaaradan iniigu yimiday ama jamaacadka dacwadee socda inay dadka u fatwoodaan uma socdaan bal waxay u socdaan keliya inay dadka caamada iyo culummada isku xidhaan bay jamaacaddu u socdaan ayuha alcaalim wa ayuha alimaam waxaad ogaataa mujtamacan adaa ka mas-uula adigaa qiyaamaha ilaahay ku weydiin doonaa waa inay culimmaduna dacwadda u kacdo haddaad tidhaahda imaamun baan noqona miskiidun baan joogi waxa kuu imanaya waa 5% weeyaan 95% dhallinyaradii qaaradan u soo gudbay gacanteenna kuma jiraana bad kalay galeen lidaalika dadka u tegidooda waa dacwad weeyaan dadka miskiidka joogana waxuu sheegidoodu waa tacliin weeyaan tacliinta dadka raaqibiinta iska leh dacwadana dadka khayru raaqibiinta la yidhaahba iska leh marka masaa'il diiniya waxaad qabtaana culimadiina mar walba weydiiya shaqo kastood qabanaysana muslimow ka fiiri shaqada waxaad tidhaahdaa salaada ma ka tukan karaa shaqaduna ma xalaal baa labadaa hadday leedahay waa mubaax hadday labadaa shaqadu aynan ahayn ka joogo ka tag waayo arsaaqada ilaahay baa haye gaajo looma dhintee ciyaalkaaga arsaaqad xaaraan aqalka ha u soo gelin gabadha saalixada muuminadana waa inay ogaataa oy tidhaahdaa war waxaad ka shaqaynaysa naga fiiri waryaa sida gabadha ninkeedii ku tidhi war aniga ilmahaygu gaajo waan u adkaysan karaynaa laakiin naarta cadaabka aakhira u adkaysan kari mayne luqmad xaaraan aqalka ha iga soo gelin bay ku tidhi isku duubnaantaas aad isku duuban tihiinna ku dadaala insha allah dhahada dee masaajidna dhista masaajid iibsada hadda meesha ay nagu soo dhaweyseen waa masaajid yaroo kiraa skandinafiyankaan soo marnay bifadli illaahi caza wajalla nin sheekha igu yidhi ma berigii hore mise imika berigii hore buu yidhi nin walba wuxuu lahaa meeshan ma joogi karayside waad noqon doontaa hadda wax socda sheekh xuseen uma jiraan ogaada buu yidhi meesha waa degnay buu yidhi khalaas marka waxaan aad ugu farxay tuulooyinkaan soo maraynay oo dhan ee Soomaalidu ay deganayd inta badan masaajidda iyakaa gato iyakaa iska lahaa marka insha Allah inaguna masjid iibsada insha Allah dhahada masjid jamaacadu inigu soo dagaan oo kulanada lagu qabto oo yaa culimadu inigu timaado iibsada insha Allah dhahada lacagtiina marka diinta ku bixisaan
masaajida ku bixisaan dacwada ku bixisaan macallin quraanka aad ku bixisaan inaguna waad ku barakoobaysaan awlaadiinana ilaahay azza wa jalla waa inii barakeynaya marka khayrul kalaami ma qalla wa dallabu nabigu alayhi salaatu wasalaam hadal waxa ugu khayr badan waa hadalka maaragtaan kooban laakiin hadalka murtida hadalkaas ugu khayr badan maanta oo dhan waan hadli karnaa laakiin waxa ka muhiimsan waxa soo dhan inuu qofku maaragtaan isbedel u keeno inuu maxay keeno inuu isbedel keeno waxa aad duubaysaan maanta meel walba waad ka dhageysateen meel walbana waad ka daawateen laakiin waa inaan eegnaa maxaa isbedela waan dhageysanay oo diinta dhagihii waa ka maqalay laakiin maxaa nolosheena isbedel ku yimid wala qayilaysa oo wadankeeni joogta mid qayilayo sigaarkiina cabaya igu yiri Sheekh Hussein anu cid kale ma dhageystay adiga Sheekh Mustafa ni dhageystaa buu yiri waan taageeraa buu yiri markaas aan ku yiri khayr Allah ku siiyo horta dhageysiga khayrka dhageysanayso uu fiican yahay laakiin isbedel baan u baahanaa isbedel Saudiga qayilay ma ku yiri Saudigan dariiq baad fadhidaa qaadna waad cunaysaa sigaarna waad cabaysaa culimadiina waad dhageysanaysaa waxaan leedahay taageerayaashaadaan ahay war culimadu siyaasiyiin ma habaan ku yiri waxa loo qaylayay loo socda waxa weeyaan in ilaahay iyo kana oo aqbala bay doonayaan oo shaqo ilaahay saaray bay gudanayaan adigana waxa laga rabaa inaad isbedel keento oo wixii culimada aad ka maqashay adigu aad ku dhaqanto reerkaaga aad u sheegto walaalahaaga muslimiintana gacanta intood soo qabato masaajid iyo dacwadii khayrka aad ku soo xidho marka isbedel inaa keeno Saudiya armayn insha Allah jamaacadada insha Allah waa sida ay noogu bilaameen waa nii soo dari doonaa insha Allah waayo Jarmal aanu sida kama filanayn waxaanu haystay wadan dadkeena luqada af Soomaaliga ku hadla ay ku yar yihiin Sheekh Abbas khayr Allah siiye markaan Djibouti ka soo baxnay Addis aan soo galay xiriirku ila bilaabay igama joojin ilaa aan ka imaado magaaladiina xalay toole markaas aan ku dhawarnimo baasaboorradii safaaradii baba naga haysay bal soo ducee ilaahay inuu dib yareeyo ilaahay waa noo dhib yareeyo ducadiinii baa ilaahay noo aqbalay waana ka imanay waxaana ku rajo qabnaa insha Allah jamaacadadu inay nii imani doonaan innakana waxaan niga rajaynaynaa in raggiina dhalinyaraduna jamaacadada markay nii yimaadaan fasaxyadiina adeegataan oo jamaacada aad la safartaan oo la baxdaan waayo socodkaasi adigana uu ku bedelayaa dhalinyar badan oo inaga lunsanna halkay ku jiraan inta laga soo saaro ayaad masaajida keeni doontaan yaa sida ku niyoonay insha Allah jamaacada la baxo allahna inagu anfaco يا ملنا يا موضوع أنك شيخ أنك إذا مثلينه يا نور فريسني وحنا الشيخ وماله معين أن حنوريه حبنا كمذا شيء كنا حوله يا إنفكشن كشرا أو بعدين لك عيو شيخ وذان كيسين أنت موضوع وتعطي وحيابها كمهم كهو وحنا ملنا يا وددي هذا وصعد كوتشري وحيابا بدن بو soo arkay waxa ugu muhiimsan anigu qalbiga ka maqnaan buu waxay insaanku inuu cuno wax xalaal ah jazakallahu khayran insaanka inuu cuno wax xalaal oo uu aruurtiisa iyo isagu mataqaanaa wax xalaal ah uu siiyo arintaana hadaan nahay dadka xaafadan degan Jarmal baan ka wadaay waxay nagu haysaa dhibaato aad u weyn Jarmalka dadka degan waxay nagu haysaa culays aad u weyn intay fahmaysaa waa waxyaabaha guryaha dibiyuu ka mid yahay sababay single father single mother single blah blah waxyaabaha sababay ka mid yahay mawduucaas aad buu u taabtay jazakallahu khayr waxaan rabaa annaga inaan xasuusino oo aad u fiirino arrimaha kale aadka muhiimka ah niman yahow waad aragtaan duruuftan iyo sidan hadda aan ku noolahay laba masaajid baa meesha noogu yaala Qayman Gabiid masaaxadooda aad u yar iyo cimilada hadda in ku jiro aad u kulul baan ka soo guuray meeshana waad aragtaan inina macallin annagoo 28 nin ah Sheekh Hussein way maqlaay waxaan abuuray masaajidkaas fiis baan ku yaala iyo kan minus maanta dadka meesha jooga 400 oo ruux waa dheeyeen haday 500 ubad 500 300 about 300 way dheeyeen niman yahow
sheekh xuseen iyo jamaacadiisa waa in maqlaan war masaajid meeshan ma ka samaysan karnaa awooddaas ma leedahay su-aasha inkastoo aysa fiicneen anigu tajrubaan leeyahay masaajidka markaanu samaynaynay annagoo eber gacmahaygo saasa yaanu 28 isugu nimid nin oon meel ku jirnay magaaladan aynu joognaanu ku jirnay masaajid baanu samaysanay abubakar baanu bixinay mid kaluu dhalay abubakar la dhalo nimayow sanadka soo socda waxaan rabnaa sheekh xuseen hadduu naga ballanqaadi iyo hadduu wakhtigiisa dib u eegi kolay isaga inoo sheegay sanadka soo socda 2023 markaz weyn oo dacawi ah rabno meesha inaan ka samayno markaz weyn insha allah markaz weyn oo dacawi ah oo aanan cidna marti ugu ahayn oo aanan lahayn kuraastu waa ku yartihiin intaad dalbateen way ka badan yihiin oo ciriiri ah oo cimiladan aad ku adag hankaas ay ugu jireen ma ila qaadeen nimankan martida marka laga raabo ma ila qaadeen oo mas'uuliyadaas ma qaadaynaa oo markaz ma samaysan insha allah bismillah allahu akbar allahu akbar jadwalkeena markaas ku soconay anigu hadal badan iguma jiro ahlu bayt baan ahay oo meeshii way jamaacadan ku wareejin insha allah jazakallahu khair laysa gabagabadii markaan in la taagan yahay dad badan oo xanuunsanaya jira ducadu way dhacaysaa caam iyo qaasba waa loogu ducaynayaa hadduu alla yiraahdo waxa inoo xigi doona nidaamkii iyo khidmadii baa inoogu xigi doonta waxaan aad uga ballamaynaa yaanan isku dhex yaacin yaan la buuqin ma aragtay Allah dhaaf diinta Allah inoo macaanayo maralkeena Allah shaafiyo mawtaadkeena Allah u naxariisto amni iimaanka Allah inoo ziyaadiyo dad badan oo walaalaheena xanuunsan Allah caafiyo caafimaad Allah ina siiyo caafimaad Allah ina siiyo insha Allah amiin hada caafimaad Allah ina siiyo dadka halka ducooyinka soo qortay iyo dad fara badan oo inaga maqan oo ducadoona mar walba noo soo duceeya nagu leh ilaahu qof walba halku ka buka adiga ogay ilaahu caafimaad ka sii ilaahu caafimaad sariica ka sii xanuunada dhakhtaradu ay daweyn kari waayeen ilaahay azza wa jalla waa shaafi isaga shaafiye ilaahay naga qaado ilaahu ka qaad qof walba kurbada saaran ilaahu adawga ka fay dhalinyarada ilaahu noogu toosi diinteena wanaagsan dhalinyaradana ilaahu diinta noogu toosi wiilal iyo gabdhaba ilaahu noo soo hadee ilaahu dalkan qadarkaaga ku imanay diinteedina ilaahu nagu sug waalidiintan ilaahu naxariiso innaka Allah inooga daba naxariisto awlaad badan bay naga maqan Allah inoo soo celiyo hooyooyin badan baa ulma ka maqan Allah u soo cesho qaarubadkii baa ka xidhan Allah u soo daayo qaar sheedaanka iyo naftoodii baa ka qaalib noqday mukhadaraadka Allah ka soo saaro ya Allah ilaahu noo dambi dhaaf noo naxariiso ilaahu diintaada